dhulka haddii la ii soo celin waayo anuu 10 boos anoo Hargeysa ku leh yaa waxaan ku jiraa imanka sandaqad kira ah oo hawiye leeyahay magaaladan ku dhashay oo sharcigeedii uu ka yahay oo dhalashadii edikaarkii kii codaynta wixii u dhawaa wata doorasho kasta Soomaaliya laga qabtay waa codeeya dhulkayga ha la ii soo celiyo dhulkayga haddii la ii soo celin waayo anuu magaalada waa ka tahriibahaya anuu nabadoon reerkaas ahay nabadoon mareexaan ahay dadkii aad dhasheen oo mareexaanka baa magaalada ka buuxa maalin walba kiis bay galaan ayagana waa laga galaa anaa xalliya sanadkan hadda aan soo dhaafanay mid arab dhalado mareexaan oo gaari wata yaa galay gaari kale waayahay cabdi macalin warsamow nabadoon dadku waxay isweydiinayaan dhulkan goormaa laga qaaday sidee looga qaaday بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد هل كان أما إيمان أنا وعدي كشيء ودتك وعدي أريمو أنا إيه خاصة يعني إمد هل كان أريموها سواء أنا قلت عبد معلم ورسمة اللي يراها هرجيسان كل شيء sharcigaygii iyo waxaygii waa wataayo kuwaas waxaan ka cabanahayaa dhul aan Hargeysa ku lahaa oo 10 boos ahaa oon horay u lahaa Somaliland ismaheedii ka sii horeeyey yaa layga qaaday niman aan xididnahay baa dhulka iga qaaday magac beeleed baana la iga qaaday anuu waxaan u dhashay dhalashada beesha markii la aado in mareexaan aan aanu nabadoon mareexaan aan ahay ilaa 70kii Hargeysaan waan ka shaqayn jiray iminka waxaan ka cabanayaa 10kii baloor oon Hargeysa ku lahaa 10kiiba waa laga qaaday marka ma hayo waxaan ka codsanayaa dawladda iyo odayaasha dhulkaygii inay ii soo celiyaan dhulka haddii la ii soo celin waayo anuu 10 boos anoo Hargeysa ku leh yaa waxaan ku jiraa imanka sandaqad kira ah oo hawiye leeyahay yaan ku jiraa waxaan codsanayaa dhulkaygii in la ii soo celiyo haddii la ii soo celin waayo magaaladan ku dhashay oo sharcigeedii uu ka yahay oo dhalashadii edikaarkii kii codaynta wixii u dhawaa wata doorasho kasta Soomaaliya laga qabtay waa codeeya dhulkayga ha la ii soo celiyo dhulkayga haddii la ii soo celin waayo anuu magaalada waa ka tahriibahaya tahriibkaasuna ma aha kii Maraykanka iyo Yurub loo tahriibi jiray waa tahriib Soomaali dhexdeeda u tahriibaya meeshaan ku dhashan 70 iyo waxaan jiraa weliba waxba ii weheliya aan taagnaa mar haddii la ii yiri dhul kuma yeelan kartid intii horena waa kaa qaadan arrin cajiib leh oo soo martay oo meesha waad ku dhalatay miyaad u dhalatay ma maqasho weliga waad ku dhalatay miyaad u dhalatay sheekadaas waxaan leeyahay dhulkayga la ii soo celiyay waxaan kaloo codsanayaa madaxda dowladda aan codsi u jeedinayaa madaxweynaha laga bilaabo madaxweynaha kow madaxweyne ku-xigeenka
gudoomiyaha baarlamaanka maayirka magaalada gudoomiyaha degmada Inamooye shantaan nin baan soo codsaday codsigayguna ayagu ku socdaa dhulkaygii 10 baloor ha la ii soo celiyo haddii la ii soo celin waayo tahriib ha laygu qoro waa tahriibaya weliba waxaa intaas sii dheer aan ku sii daraya anugu nabadoon baa nabadoon reerkaas ahay nabadoon mareexaanaan ahay dadkii aad dhasheenoo mareexaankaabaa magaalada ka buuxa maalin walba kiis bay galaan ayagana waa laga galaa anaa xalliya sanadkan hadda aan soo dhaafanay mid arab dhalado mareexaanoo gaari wata yaa galay gaari kale 4 saacad moosaa ku dhimatay iyo 3 dhaawac 2 oday kalaa joogto reerka oo waa laga cararay caraalay soo qabtay dadkii nimankii waa la heshiiyey ninkii reerkoodii baan doonay 4 bilood gudahood yaa la ii soo shubay magtii afar bilood gudahood 4tii dhimashada ahayd iyo 3dii dhaawac ahayd 4 bilood gudahood yaa maraxaan ii soo shubay sumcaddan halkaan ka helaa awal daantaasaan naganaan jiray ilaa weligay hadda waxaan leeyahay saacad muuse xaggiisa ma wareegta marka war iyo dhammaantiis 10kaygii boos hala ii soo celiyo maayirka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baalkii maxay ahayd guurtiga madaxdoo dhan waxaan ka codsanayaa 10kayga in la isiiyo siiba maayirku isagaa dadka dhulka siiya oo dhulka bixiya dhulkayga waa in la isiiyo waayahay cabdi macalin warsamow nabadoon dadku waxay isweydiinayaan dhulkan goormaa laga qaaday sidee looga qaaday waxaasoo dhan anaa cadday waxaa laga qaaday 10 sano kiiskana waa socday markii dhulka laga qaaday ergaan galay ergadii wax ku waayey dacwaan galay waxba kama hayo xataa dhulka qaar la ii soo xukumaa dib layga qaaday maxkamaddu markay ii soo xukuntay iyo waaxow kaa lala dhex fadhiista dee laguu soo xukunya kaa layga qaad baa laygu yiri marka dhulka waxaa la iga qaaday beelnimo anuun maraxaana reer Hargeysa dhulkuma yeelan karo way taagan yihiin nimanka dhulka mulkigiisa sharciyada aad u haysataa ma waynu la soconaayo 88kii dowladdii dhexe Soomaaliya way burburtay waa la qaxay dib baa loogu soo noqday Somaliland markii la soo noqday nin waliba meeshuu ku soo hagaagay buu qabsaday dhulkaaga ma markii xilligii dowladdiisii aad bare mulkigiisii baad haysataa kowdhe mise intan Somaliland 30 sano ay jirtay ayaad mulkiday oo lagu siiyey maya dhulkaygu Somaliland waa ka horreeyay kuwa iga qaaday dhulkayga way yaqaaneen shaar baan ahay anuu nin caan ahaan ahoo 70kii baan soo galay Hargeysa intaa daantaasan degaa galan yaan shaar la ah xisiidna la ah nimankii waa igu la magacleeyey 2005 meelahaas kuwa aan garanayo dayda iska ahaabaa dhulka qabsaday waa isqabsanay waxba waa ku waayo waa iga tageen waa ku noqdeen sano xaafadda iyo waddankaas oo dhan waa yaqaaneen dhulkayga halkuu ku yaallaa sayladda agteeda ma beer baa warmay waa degaan wey
marka waa hal baloog weeye 8 isku taal labana dhinac tahay marka islaamu barigii xaafadda iyo wadanka odaybaanka ahaan jir dadku dhan baa yaqaan anuu ma qaxin xataa markii la kaa qaaday siday kuu soo galeen ma booskaaga ayay jaar la ahaayeen ma qaraabatiin sideed isku soo gasheen qaar baa aniga ila shaqayn jiray oo dhulka yaqaan kuwiis meelaha ka yimid kii ila shaqayn jiraa heshiiyey dhulkaan ninkaa mareexaan baale aan ka dhacno waanu isqabsano waaxaan gallado dhulkii xaafadii oo dhan baa soo baxo oo dhulkaa ninkaasaa leh waa layga tegey waraaqii oo dhan waa hayaa wixii saxiixii iyo beledii maxkamaddii war iyo dhammaantii waa laygu soo noqday dhulkii markama hayo war iyo dhammaantii